السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ميل كasta oo aad daafaha caalamka naga joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii waxtarka wariyaha. barnaamijka waxtarka wariyaha ayaanu mar badan ku casuunaa wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta oo ay daafaha caalamka ka joogaan annaga oo markaasi barnaamijkan uga galay sidii wariyaha Soomaaliyeed codkooda iyo hadalkiisaba iyo walaahdiisa uu ku dhiiban karo barnaamijka waxtarka wariyaha. sidoo kale aan kaga hadalno waxyaabo ay kamid tahay barnaamijka waxtarka wariyaha wariyuhu waxtarintee laga leeyahay bulshada Soomaaliyeed qaab nooca ah ayaa wariyaha markaas xaq loogu leeyahay inuu barnaamijyo rugta leh uu soo gudbiyo barnaamijkan oo markaas imtixaanaha oo dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin aan ugu talagalnay live Facebook live to live aan ugu casuuno meel kasta oo adduunka ka joogo ayaa barnaamijkan waxa aan ku qaada dhigi doonaa hadii ay baraali ka noqdo qodobo markaas doora sidoo kale ma aha barnaamij news waa barnaamij documentary aan ku warayno wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta ay daafaca caalamka joogaan afkaartooda iyo dhibaatooyinka la soo gudboonaada sidoo kale wariyuhu sidee ayuu markaas uga qayb qaadan karaa deegaanka uu joogo dhinaca tayada arrimaha horumarinta bulshada iyo waxyaalo la halmaala barnaamijka maanta waxa ku casuumay hadii ay baraali ka noqdo Maxamed Bosh oo ah wariye markaas ka howlgala magaalada Hargeysa isla markaana kamid ah wariyaasha ugu cadcad suxufiyiinta halka ka howlgala ayaanu maanta ku casuunay barnaamijka waxtarka wariyaha waxaana ku sugan yahay magaalada Hargeysa Bosh ayaan soo qaban doonaa hadii ay baraali ka noqdo sidoo kale barnaamijka waxa ka qayb qaadan doona wariyaal markaas iyagu daafaca caalamka la jooga oo dad badan ayaa jira oo ka qayb qaadanaya barnaamijka waxtarka wariyaha oo aan la balansanahay barnaamijku waa barnaamij baahsan oo dhammaan caalamka u dhan gaaray dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna waan uga mahadcelinayaa sida sharafta iyo karaamada iyo markaas maamuuska leh ay iga aqbaleen codsiga markaas Bosh ma soo qabanay Bosh ku jirtaa haddaad ku jirtid wax tiraada waan ku jiraa si aan markaas ku soo qabto ku jirtaa Bosh fadlan dhammaantiin waxaan ka codsanayaa inaad sii share gareysaan oo share si tirahdaan si barnaamijkan uu ugu fido dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed kaasoo ah barnaamij imtixaane ah oo aan ugu talagalnay wariyaasha kaliya Soomaaliyeed wariyaasha kaliya ee Soomaaliyeed meel kasta ay daafaca caalamka sugan yihiin sidoo kale barnaamijkan waxtarka wariyaha waxa aan cidda u dhaafo ama uu seego waxay si live uga daawan doonaan ama toos uga daawan doonaan bartaan ku leenahay YouTube-ka waxtarka wariyaha oo aan ugu magac darnay isla barnaamijkan waana documentary gaar ah oo aan ku warayno wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta oo ay daafaca caalamka joogaan sidii ay markaas fikirkooda ay uga gudbi lahaayeen isla markaana ay u faa'iideyn lahaayeen wariyaasha aan khibrad lahayn ee dhibaatooyinka faraha badan ku haya bulshada Soomaaliyeed sidoo kale barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa wariyaha wanaagsan waxyaabaha lagu dooran karo qaabka warbaahinta Soomaaliyeed iminka ay u shaqeyso sidoo kale waa kuma suxufiga dhabta ah waxyaabo noocaas ayaanu ku qaadaa dhignaa barnaamijka waxtarka wariyaha oo ah barnaamij wacyigelin oo aan ugu talagalnay inay codkooda ku soo bandhigaan dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta ay daafaca caalamka joogaan Bosh waa ku casuumay hadii aad maqlaysid ii soo qor waan joogaa si aan markaas aan ku soo qabto ma maqlaysaa Bosh haday maqlaysid soo qor waa ku jira si aan markaas ku soo qabto ku soo dhawaada mar kale barnaamijka waxtarka wariyaha fadlan sii share gareeya barnaamijkan oo taxane ahaan doona oo aan ku qaada dhigno alaaba wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta oo ay daafaha caalamka joogaan anagoo markaas ku wareysan wariyaasha Soomaaliyeed duruufahooda waxyaabaha la soo gudboonaada dhibaatooyinka uu qabo wariyaha Soomaaliyeed waa maxay bulshada waxtarka uu leeyahay wariyaha Soomaaliyeed waxyaabaha soo dhan ayaanu markaas ku qaada dhignaa barnaamijka waxtarka wariyaha oo aan ku casuuno dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed ha joogeen koonfurta Soomaaliya ha joogeen waqooyiga Soomaaliya iyo ha joogeen markaas bariga Soomaaliya dhammaan waxaan ku casuuminaa wariye kasta oo Soomaali ah meel kasta uu ka howlgalo anagoo markaas ku weydiinayna su'aalo muhiim ah oo ku saabsan taariikh nololeedka wariyaha iyo waliba waxyaabaha laga baran karo wariyaha wanaagsan sidee loogu dayan karaa wariyaha wanaagsan ee isla markaana ka qayb qaata horumarka dalka sida barnaamijyada tayada leh sida wararka dhacdooyinka dhabta ah ee markaas jira caqabadaha la soo gudboonaada wariyaha dhammaantoodba waan ku qaadaa dhignaa dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta ay daafaca ka joogaan waana barnaamij imtixaane ah oo u gaara wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta ay daafaca caalamka joogaan
fadlan sii sheergareeya si markaasi ay u gaadho dhammaan wariyaasha soomaaliyeed iyo weliba bulshada soomaaliyeed si ay ugu daydaan wariyaha wanaagsan. Boosh haddii aad ku jirtid waa ku jiraa dheh ii soo qor. Boosh waan kugu casumay soo qabso kaamarada waan kugu casumay soo qabso haddii baraali ka noqdo. wariye maxamed boosh baan soo qabanaya haddii baraali ka noqdo ku sugan magaalada Hargeysa ee xarunta caasimadda Somaliland. barnaamijku waa ku jira. Okay, haddaan kusoo qabanaya aqbal videoga markaan kuu soo diray aqbal boosh. maxamed boosh mahadiyaa kaa gaadho waana kaaga mahad celinayaa sida sharafta leh aad markaasi nooga bashay barnaamijka waxtarka wariyaha inaad nagala qayb qaadatid adigoo ku sugan magaalada Hargeysa. soo qabso waan kuu soo diray casumaadda. barnaamijkan waa barnaamij imtixaana oo aan ku qaadaa dhigno alaabaan ku wareysan wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta oo ay daafaha caalamka ka joogaan annagoo markaasi uu barnaamijkan yahay codka dira aqbalaada waan ku soo diray casumaadda markaa aqbal oo ku soo diray يا دوف حسن سودو هذا دمانتين وين سلامي ما هي وين صودري هذا صودري أقبل ونقول عليه مرة واحد يروح وعليه هاي وين أقبل ومركا أقبل فيديو ونقول صودره أدم أوكا هذا صوت السوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد. وعليكم السلام عبد السامد aad baan kuu salaamayaa waxaan filayaa inaad ila socoto si wanaagsan si fiican baan ku arkaa jimco wanaagsan ku soo dhawow barnaamijka waxtarka wariyaha jimco wanaagsan adiga iyo barnaamijka waxtarka wariyaha iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee nala socda intaba aad baan idin salaamayaa وانا كاغا مهد علينا martiqaadkaadi ugu fidisay barnaamijkaagani waxtarka wariyaha Cabdisamed aad baad mahadsantahay aad iyo aad aan kaaga mahad celinayna aqbalaada barnaamijka naga bashay sida qiimaha iyo sharafta leh iyo karaamada leh oo aan marnaba ilaa weynin aad markaasi aan kula soo xiriiray aad yaa bashay codsigayga maxamed waxaad ka shaqaysaa hadda rumeynaya Home Cable TV aad iyo aad hadda waxaan ka tirsanahay muddo ka badan 5 sano telefishinkani Home Cable TV oo aan ka mid ahay howlgalladiisa magaalada Hargeysa waa tahay bal in yar ma nooga taaban kartaa waayahaagi saxaafadda wallahi Cabdisamed waayahaasi mana fogeyn waanu fogaa oo hadda 10 sano laga joogaa waxay ahayd 2007 markii aan ku soo biiray saxaafadda waqtigaasi waxaan ka howlgalay television loo dhan jiray Somaliland Space Channel oo mar satellite ka galay isla waqtigaas waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ugu daada yareed waqtigaasi ka howlgashay 10 sano ka hor bay ahayd waxaan uga soo gudbay xagga baraha online ka loo yaqaan website-yada waxa kaloon ka howlgalay television-kii loo dhan jiray Royal oo ka mid ahaa dadkii lagu aasaasay kadibna waxaan la shaqeeyay dhowr raadiye markii dambana muddo 5 sano ka hor waxaan imi halkan Home Cable TV oo ka mid ahay barnaamij soo saarayaasha television-ka waa tahay maxamed marka aan daawano ama bulshadu daawato barnaamijyadaada warbixinahaaga waa kuwo markaasi aad iyo aad u wanaagsan oo runtii wariye ku daysho mudan la oran karaa ayuu soo diyaariyay waan kaaga mahad celinayaa barnaamijyada tayada leh iyo wararka cajiibka ee aad soo dayso deegaanka waa maxay ayaad oran kartaa waxtarka wariyuhu leeyahay bulshada wallahi horta waxa weeyaan saxaafaddu waxay u hadashaa bulshada dadka codkooda aan la maqan bay ay u hadashaa ma aha saxaafaddu inay ka waranto siyaasadda oo kaliya waa qayb ka mid ah professionka ay qabtaan ama shaqadooda laakiin se waxa ugu muhiimsan ee saxaafaddu ay tahay inay dalka iyo dadka ay u soo bandhigtaa waxa weeyaan waxa markaasi jira gaar ahaan dadka codkooda aan la maqal dhibaatooyinka dhaqan-dhaqaale ee bulshadaasi haysta horumarka ay sameynayaan sidoo kale waxyaabaha noocaas ayaan oran lahaa
way yihiin waxtarka saxaafigu. waa tahay markaynu soo noqon magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland aad ku sugan tahay xaaladda siyaasadeed haddeer waa sidee? wallaahi waxa weeyaan Somaliland doorasha la filayaa 13 November inay dhacdo ee sanadkani. waxyaabaha hadda saxaafadda saameynta ugu badan ku leh ama warbaahintu ay sida weyn uga waramaysaa waxa weeyaan waa doorashadaasi iyo loolanka u dhaxeeya axsaabta siyaasadda ee ka qayb galaysa doorashada madaxtinimada. xilli kastoo doorasho ay soo dhawaatana dabcan wax iska caadiya Somaliland in arrimaha siyaasadda si weyn loo hadalhayo. waa tahay warbaahintu qaab nuucaa bay uga qayb qaadataa marka doorashooyinku dhacayaan? wallaahi horta warbaahinta waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. waxa weeyaan qayb xukuumaddu ay leedahay oo loo yaqaano state run iyo qayb madax bannaan oo leh telefishinno, wargeysyo, website-yo. inkastoo hal raadiyo kaliya Somaliland uu ka jiro oo raadiyaha dawladdu gacanta ay ku haysay raadiyo Hargeysa. saxaafaddu inta madaxa bannaanay waxay u waramaan oo intooda badan ay dhexay u yihiin marka laga reebo kuwa kooban dadka murashaxiinta ee tartamaya iyo taageerayaasha axsaabta siday uga waramayaan bandhiga ay sameynayaan, isu soo baxyadooda, taageerada ay haystaan ee qolo waliba ay soo bandhigayso, waxyaabaha barnaamijyada xisbiyada oo ay tabiyaan. si wanaagsan bay uga howlgalaan xilliyada doorashada. waa tahay qaab nuucaa baa wariyaha wanaagsan markaasi lagu xushaa inuu uga qayb qaato arrimaha doorashooyinka oo kale? wallaahi horta wariyaha wanaagsan waxa weeyaan ka mar walba dhexdhexaadka xaqiiqadana aan ka tegin, qof waxa weeyaan aad uga fog wax kasta oo keeni kara khalkhal oo warkiisu ahaan karaya barnaamijku sameynaya wax lagu kalsoon yahay oo bulshadu ay ku qanci karayso oo uu dadka ka iibin karayo. maaha wariyaha wanaagsan mid mar walba dhinac u xagliya dee shuruucda caalamiga ah ee saxaafadda iyo tan deegaankuba waxay qabaan inuu suxufiga wanaagsan yahay ka dhexdhexaadka. wax waliba adduunka xeer bay leeyihiin, warbaahintuna xeer bay leedo taa adduunyada ka jirta ee dhulka aad joogtaan baynu kala mid nahay. inkastoo waxyaabaha qaar dhaqankeenu uu saameeyo oo dee duruufahaynu ku noolahay ay saameeyaan oo ay taasi saacidiba weyda inaynu helo tiro badan oo wariyaalo oo wanaagsan oo mustaqbalka muuqaalka waddanka meel wanaagsan dhiga. saxaafadduna waxa weeyaan waa isha laga arko waxa weeyaan bulsho kasta meel kasta ha joogaane. tusaale oo kale telefishinka Aljazeera qadar waa waddan jira laakiinse waxa ka caansan telefishinka baan ayaan odhan lahaa. waxay sameeyeen warbaahin si xor ah u shaqeysa oo adduunyada uga waramaysa oo qadar magaceedii kor u qaaday. saxaafadda Soomaaliyeedna waxaan odhan karaa sanadaha soo socda kuwa hadda jooga maahe anigu waan ka mid ahay waxaa la gaari doonaa mar aynu helo suxufiyiin wanaagsan iyo warbaahin wanaagsan oo magaceena iyo muuqeenaba kor u qaada. waa tahay kaba soo qaad haddeerta oo kale marka sidoo kale siyaasadda arrimaha siyaasadda la isku khilaafo sida Somaliland oo kale, Puntland oo kale, maamulada ka jira magaalada wadamada Soomaaliya oo kale marka ay siyaasiyiintu hayaan saxaafaddu laba dhinac ay badanaaba la safataa. saameyn intee leeg bay wariyaha u keenaysaa arrintaasi la safashada ay la safteen siyaasiyiinta? wallaahi waxa weeyaan suxufiga horta waxa dila rumuudka telefishinka lagaga daawanayo oo la iskaga qaado oo magac dilka ugu xun lagu sameeyo ama raadiyaha mawjada la bedelo. taasi waxa weeyaan waa markay dadku aanay ku kalsoonayn waxaad sheegayso. xataa wax wanaagsan haddii aad sheegayso ood maalin dhan aad u xaqlisay waxay og yihiin inaad wixii una soo wado. inta badan saxafiyiintu kuwooda magacooda iyo sharaftooda dhowrtaa si wanaagsan bay uga waramaan arrimaha doorashooyinka. anigu koonfurta waan joogo 8 bilood imika ayaan joogay. doorashadii ugu dambeysay ayaan joogay magaalada Muqdisho. dabcan suxufiga wanaagsan iyo ka xun intaba dee bulshadu way kala garanaysaa. dadku iyagaa qiimeeya dadka oo yidhaahda hebello waa sidaa oo dhinac buu raacsan yahay, hebello waa dhexdhexaad. marka qiimeyntu wax xagga bulshada ka yimaada. waa tahay badanaaba wariyaasha taga Muqdisho oo ku soo noqda magaalada Hargeysa qaarkood waa la xidhaa. ma sharci baa jira ah in wariyaha ama saxaafadda ku qoran Somaliland ah in wariyaha hadduu xamar tago xadhig ama markaasi uu muteysan yahay?
wallahi horta waxa weeyaan markaynu runta aynu sheegayno duruufaha siyaasadeed iyo arrinta somalilan si weyn baynu uga warhaynaa. anigu muqdisho waxaan tegey in ka badan 5 jeer baan tegey oon howlo shaqo u tegay iyo kuwa gaara, wax dhibaataa lama kulmin. suxufiyiintuna waxa weeyaan dee maadaama ay ogyihiin halkii ay ka yimaadeen inay taxadir muujiyaan markay magaalada muqdisho tagaan, waayo arrinta siyaasadda ayaa wax walba nolosha saameyn ku yeelatay. way jiraan dad khaladaad lagu xidhay, suxufiga horta waa xor, laakiinse waxaan ka hadlayaa wacdiga deegaanka yaalla, arrinta deegaanka ka jirta. kuwo markii lagu gafay la sii daayay way jiraan, kuwo kaloo iyagana loo haysta arrimo siyaasadeed way dhacday. intabana waxaan ka mid ahaa dadkii ka howlgalay sidii dadkaasi loo sii dayn lahaa. waxaan ka mid ahay guddiga urur ay leeyihiin suxufiyiinta somalilan oo ah ka ugu weyn. muqdisho haddana anigoo ku jira waan tagaa, waan ka soo noqdaa. qofka suxufiga waxa wanaagsan cabdise madow inuu noqdo qof dhowrsoon oo karaamadiisa ilaaliya. maanta soomaalida waad ogtahay siyaasad ahaan bay aad u kala qaybsan yihiin, maaha somaliland, puntland, koonfur galbeed, waxaasoo dhan. haddii qol ay wax dhibsato maanta waad ogtahay dhibaatada kusoo gaari karta. in bulsho dhan fikir khaldan la gaadhsiiyo oo wax dhici karayso la yidhaahdo ninkaasi deegaankeenna waxun buu ka sii daayay. qaaran wixii aad sheegtayba aan arag ayaa laga yaabaaba inay kula culoobaan ay dhibaato ku gaadhsiiyaan. marka taxadirku wuu wanaagsan yahay mar kasta ood hawl saxaafadeed qabanayso. waxa ka iman karaana waa inay noqdaan waxaad ka fiirsatay barnaamijka iyo warkaad sii daynaysaa. waa tahay suxufiyiinta somalilan ururka suxufiyiinta somalilan wax la taaban karo oo u qabtay ma jiraan? wallahi waxa weeyaan horta waxa weeyaan ururada inta badan saxaafadda ee Soomaalidu kuwa awood badan lama aha oo sida kuwa adduunka oo kale xataa qaaraanka ay mararka qaar ay adag tahay inaad ka soo wargeyso dadka suxufiyiinta, laakiin waxay ku dadaalaan inay tababar qabtaan. tababarkaasi ma gaarsiisana mid college iyo jaamacada lagu furay, laakiin tababaro bal anshax iyo saxaafaddu waxay tahay lagu barayaa way jiraan oo way socdaan. Hargeysa ka socdaan, Puntland bay ka socdaan, Muqdisho ka socdaan. haddana waxa weeyaan inta badan saxafiyiinta dadkan anu ka mid ahay waxay hana qaadeen waqtigii burburka iyo dhibaatadu ay jireen ee kala dambeeynaantu ay jirtay. taasaa markaa keenaysa aqoontii oo liidataana dabcan waa ka mid waxyaabahaas markaa keenaya in saxaafaddu suxufiga si uu ku dhiisuba dhibaato u geysto. ururada saxaafaddu waa kuwa awoodoodu ay aad isaga kooban tahay, meeshay doonaan bay ka jiraan, laakiinse haddana ma dadaal yara marka loo eego duruufta ay ku shaqaynayaan. waa tahay hadda markaad doonaysaan inaad warbixin ama warar ama barnaamijyo aad ka soo qabsanaysaan xukuumadda, qaab noocee ah ayaa laydinla dhaqmaa? wallahi waxa weeyaan taasi waa wax iska caadiya oo waxa weeyaan mar casuumad baa lagu soo dirayaa, marna waxa weeyaan intaad xafiiskii aad tagtaa ciddii mas'uulkaasi saxaafadda u qaabilsanayn ama xogeyntiisa oo kala xiriir ayaad la samaynaysaa, u sheegaysaa hawshaad uga socoto. haddii wasiirka ama wasiir ku-xigeenka ama qofka hay'adaasi dawliga ah haysta uu telefonka uu ka qaban waayo ama telefonkaabaad uga sheegaysaa, xagga warheliddu ma dhib badna. laakiinse mararka qaar xilliyada buuqyada siyaasadeed ay jiraan way jiraan saxaafadda dhibaato badan oo loo geysto oo askarta waliba hadima badan ay ka soo gaadho oo dad xidhaan oo dadka maradaha ay ka jajabiyaan. xilligan oo kalena waa xilli taxadir ay mudan tahay inay saxafiyiintu islaaliyaan, gaar ahaan Soomaaliland oo doorashadii la qabanayo. waa tahay waxaa jira meelo badan Soomaaliya sida Muqdisho oo kale waxaa looga yaqaanaa qof lacag ka qaata ama madax lacag ka qaata ama bareefad qof lacag ka qaata lacag la yiraahdo sharuur. sidoo kale Puntland waxaa looga yaqaanaa dhinaca bariga waxaa looga yaqaanaa lacag la yiraahdo sidoo kale danaansi ama lacag waxyaabo noocaasa. maxaa looga yaqaanaa lacagta noocaasa Somaliland? wallahi lacagtaasi sharuurka xaggaasi looga yaqaano koonfurta, halkan waxaa looga yaqaanaa qabax baa looga yaqaanaa. qabax baa looga yaqaanaa. qabax iyo sharuur markaa waa isku mid. waa tahay qabax iyo sharuur. marka qabaxaasi marka saameyn intee leeg bay ku yeelan kartaa wariyaha laftigiisa? wallahi qofka sumcadiisa saameyn bay ku yeelan kartaa. qof laaluush la siiyey baad ayaa tahay. qof laaluush la siiyeyna ha ka eegin inuu si madax bannaan inuu shaqeeyo oo si madax bannaan bulshada u qanciyo. lamana yaabani oo duruufta waddanka ka taagan in inta badan wariyaashu mushahar aanay qaadan. hay'adaha warbaahineed ee mushahar bixiya aad bay u kooban yihiin.
taasaa keeni karaysa in qofkii uu qaato oo suxufi wanaagsan halka aynu ka carbin lahayn uu suxufi danaysta ah oo isagu dee sharuurkiisaas ama qabaxdiisaa u daneeya un inuu inoo soo baxo oo waxyaabaha sababta u noqon karaya. waa tahay sidee bay isu qaban karaan dhexdhexaadna waan noqonayaa qabaxna waan qaadanayaa? wallahi horta de duruuftaa kalifaysa. suxufiyiin badan oo aan qaadani way jiraan, laakiinse suxufiyiinta waxaa ku kalifaya dantaa ku kalifaysa. telefishankiisii ama website-kii ama waxyaabihii kale uu ka shaqaynayay warbaahintahaa haddii ayagu awoodi waayaan qofkii suxufiga ahaa inay siiyaan mushahar ku filan, dee ma diidaya lacag adigu aad siinayso, ma diidayo. marka taasina dhibaatay keenaysaa, dee waxay uu ka fogaanayaa dhexdhexaadnimadii, in suxufigaasi uu noqdo mid dhexdhexaada oo ummadda u shaqeeya oo dadka si wanaagsan ugu warrama. waa tahay haddeer kaba soo qaad qof wariyaaba ama TV buu yimi ama inkastoo aanay idaacadu ku badnayn ama idaacad buu yimi, qaab noocaa ayaa Somaliland oo kale qofka lagu shaqo geliyaa oo lagu qaataa lagu xushaa? wallahi hay'adaha warbaahintu way kala duwan yihiin, dee waanay kala awood badan yihiin xagga dhaqaale iyo xagga farsamada. inta badan waxay eegaan dad la iska shaqaalaysiiyaan way jiraan, laakiinse waxay yidhaahdaan CV soo qaado ama waxyaabihii macluumaadkii taariikhdii waxbarasho iyo nolosha, dabadeetna imtixaan baanu kaa qaadaynaa. hababkaasi waa kuwa loo shaqo galo, waa ka saxda, waa dariiqa saxda ee loo maro. si kalena way jirtaayo inuu qof nidaamka jira ama awood leh ama qof magac leh inuu qofkaasi yidhaahdo qofkaasi meesha ha igu tababartay ha lay geeyo, iyana waa wax dhaca. arrimo qabyaalad oo qabiil oo kale arrimo qabiil oo kale waa lagu bixiyaa shaqada laftigeeda Soomaaliya. wallahi horta inta badan saxaafaddu waa waxa kaliya qabiil ka madax bannaan. dadka telefishankaasi ama hay'adda warbaahineed u shaqaynaya waxaa laga yaabaa inay deegaamo kala duwan ka yimaadeen oo iska xifrad inagu cusubba telefishamada iyo waxaan oo kale iyo warbaahintan aad bay warbaahintu uga ladan tahay. marka laga yaabo qof dee uu keeno qof ay ehel yihiin, xaggaasi qabyaaladda saxaafaddu way ka ladantay marka shaqagelinta loo eego. waa tahay ugu dambayn maxaad u soo jeedinaysaa wariyaasha Soomaaliyeed ee ku daawanaya kuwa aan runtii jecel inay ka faa'iidaystaan qaab noocaa bay barnaamijyo tayo leh warar xaqiiqa ah u soo gudbin karaan? maxaadse sidoo kale aad siracsatid maxaadse kula talan lahayd barnaamijka waxtarka wariyaha qaab noocaa aad u aragtaa? cabdisamed aad baad u mahadsan tahay. anigu saxafiyiinta waxaan ka mid ahay kuwa ugu aqoonta hooseeya. soomaalida waxaynu leenahay intaasoo qof oo aqoon-yahan oo saxaafadda ku jiray oo waxba aynaan ka faa'iidaysan baa jira. laakiin aragtideeda gaaban aniga waxay la tahay suxufigu intaanu shaqada aanu qaban ka hor qorshayn ha sameeyo. wuxuu qabanayo inuu qorsheeyo oo uu ogaado oo uu sii qoro scriptigii, barnaamijkii iyo warkii uu qaban lahaa, warbixintii uu diyaarin lahaa. waxay ka badbaadinaysaa wax badan oo dhibaato oo naftiisa soo gaari lahaa. waxaanay u horseedaysaa horumar, inuu qofkii dadaal sameeyo inuu isu arko uu kor u socdo, uu bulsho badanna uu kasbado. barnaamijkanna aad baan u bogaadinayaa sidaasi aad u wadaan. dabcanna waxaan odhan lahaa haddaad bara kale oo YouTube iyo Twitterna aad ku darsan karaysaan ku darsada. adiga cabdisamadana waxaan kugu bogaadinayaa, waan kuu soo jeedin lahaa in barnaamijkaad halkaasi aad ka sii wado. waa hawl tabaruca hawshaad qabanaysaa, hawlad macaash iyo faa'iido ku helaysa maaha. walaalahaaga suxufiyiinta ah wax kastoo wanaagsan ood arkayso, hadday tahay casharo saxaafadeed aad usoo duubto bogagaaga aad usoo geliso, dhibaatadayna haysata maanta waynu ognahay, waa aqoon darro. inu adduunyada kale kaga hoosayna. aqoon darradaasi aynu uga gudubno waa inaynu ummadaha kale wax ka faa'iidaysanaa, iyo dee Soomaalida aqoonta leh ee aynaan gaadhaynin ama inagu aynu gabnay inaynu wax ka faa'iidaysano. bal dhinacaana waxaan ku odhan lahaa isku day. aad baanad u mahadsanta. waa tahay aad iyo aad baan maxamed bash kaaga celinayaa. YouTube-na waa leenahay oo waxaan u sameeyey barnaamijka waxtarka wariyaha oo barnaamijkan isla caawa waxaa laga daawan karaa haddii ay barnaamij ka noqdo cidda u dhaafay Facebooka waxay ku qoraysaa waxtarka wariyaha si live ayay uga daawanaysaa wariyaashii Soomaaliyeed iyo intii aan waraystay oo dhan ayaa ku jira. waana kaaga mahad celinayaa waqtiga qaaliga ee aad siisay. waxa aan ku rajaynayaa khayr dhammaantiin inta ku jirta iyo inta daawan doonta. waxaan
jecela inaad sii sheer garaysaan si bulshada soomaaliyeed oo dhan iyo wariyaashoo dhan uu gaadho. maxamed aad baan kuu salaamay, waa kaaga mahad celinaya mar labaad. aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdisamed, adiga iyo dadka soomaaliyeed ee hawada inagala socdayba.